hadallada ku qotoma nacaybka iyo saameynta amni ee uu yeelan karo ayuu dood wadaagani ku saabsanaa. Waxaa soo qabanqaabiyey dalladda aqoon-yahanada dowlad deegaanka Soomaalida oo kaashanaya xafiiska warfaafinta deegaanka Soomaalida. dood wadaagani waxaa ka soo qayb galay aqoon-yahanada ku dhaqan dowlad deegaanka Soomaalida, siyaasiyiin ka socday oo NLF, wasiirro ka socday xukuumadda iyo qaar ka mid ah bulshada rayidka deegaanka, taasoo ka qabsoontay maanta caasimadda ismaamulka Soomaalida ee Jigjiga. Ugu horeyn waxaa furay kulanka dood wadaaga xubin ka mid ah dalladii soo qabanqaabisay dooda. doono ama lagu falaqeyn doono hadallada gurcan ama hadallada ku salaysan nacaybka sida idinkaga muuqda ciwaanka. marka maanta waxaa halkan marti noogu ah mudane Nuux Horseed iyo Maxamed Ibrahim oo nala daadihin doona barnaamijkan. waxaana hadallada isaga kala dambeeyay wasiir ku-xigeenka xafiiska warfaafinta dowlad deegaanka Soomaalida Jimcaali Yuusuf, Sheekh Horseed Nuux oo ah aqoon-yahan ka dhaqdhaqaaqa deegaanka Soomaalida, iyo sharci yaqaan Maxamed Ibrahim. marka koobaad waan u mahadcelinayaa dalladda aqoon-yahanka deegaanka Soomaalida oo runtii iyo xafiiska warfaafinta dowladda deegaanka Soomaalida oo iska kaashaday in barnaamijkan mataqaana uu hirgalo. wax badanna maaragtay aan isleeyahay haddii aqoon-yahankeenu ay dadaalkeeda ay muujiyaan isbeddelka dalka ka socda iyo guud ahaanba maaragtay isbeddelka guud ee geeskan Afrika ka socda rol fiican bay ka ciyaari karaan deegaankeenu, macnaha jihadiisa hadday noqoto dhanka siyaasadda, dhanka maaragtay dhisidda bulshada laftigeeda, in la abuuro civic societies, ururo bulsho oo maaragtay xoog badan. waxaasoo dhan waxay mareen marxaladda labaad ee la yiraahdo threat construction. habdhaqankeena islaamka rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri fitanku way hurdaa ilaahay nacaladiisu ha ku soo dhacdo qofka toosiya. waad garanaysaa marka meesha islaamku gaarsiiyay fitanku, yani markaad fitan abuurayso threat construction, iyadana waxaan arkaynaa habdhaqankeena islaamku meel adag inuu gaarsiiyay oo la yiri nacalada ilaahay ku soo degto qofka fitanka abuura ama kiciya. sababta saa loo leeyahay waxay tahay threat construction, fitan abuurku markuu yimaado fitanku ma yaqaano kanaa caruura, kanaa culimaa, kanaa madaxa, kanaa hooya, ma yaqaano. oo waatuu ilaahay leeyahay wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasatan. ka cabsada fitno, if it wakes up, hadday kacdo waxay saameyn oo burburinaysaa wixii maati ahaa iyo wixii waalid ahaa iyo wixii culimo ahaa iyo dhammaan. fitanku markuu dhacan islaamku waan ognahay xitaa saxaabada dhexdooda inay seef isku qaateen oo rasuulku sallallahu alayhi wasallam yiri ka digtoonaada fitan is yani sida hirarka badoo kale isdaba moojadaynaya. taasna waa threat construction. kimisha taal waxa weeyaan qofkan waxa looga baahan yahay marka hore inuu isagu horta akhriyo waxaad qorayso source ma leeyahay inuu sii dhaho. haddii ay madmatal hireen adeeso hadda u soo dhigay haddii tay meesha waxa sameeyo ko hebel caay haddii tay ama dawladdu wasa de wixii moogtay violence ay keenaysaa in waxaana ka dhalanaya moogtay si adduunka laga soo arkay cawaaqib aad u badan oo kala ka imanaya moogtay oo burbur hantiyeed iyo wax ka soo isku jira. kolka jartarada soo martay ama Afrika ha noqoto ama waxay doon noqoto ama Yurub ha noqoto si cad baa wara qoreen qaar kood oo waxaana ka tagay ma jirin moogtay oo Yurub ha noqoto. laakiin dadka maadaama da shacab dad yihiin dadna dawladda xoogii ay haysato, dawladdu waxa leeyahay moogtay iyadoo kan ka duulaysa bilo ballaarsatay. waxa kala jira moogtay kolku ciqaab yimaado ciqaabta dawladdu ma ballaarin karto. qaar ka mid ah aqoon-yahanadii goobjooga ahayd ayaa su'aalo daaran qodobka dooda weydaarsaday xubnihii daadihinaya kulanka. waxaan arkay goobjoog u ahaa inaan loo yeedhin media private-ka inaan loo yeedhin haba yaraatee oo kuwa dawladda uun loo yeedho. deegaankeenana waan ku arkay, hadda ayaan ku arkay, tii hore iska ilow ta imikaan ku arkay iyadoo telefishinada barhkood la leeyahay yaanay soo gelin. waan ku arkay, waa xaqiiqo jirta. marka dee telefishinka deegaanka ka howlgalay registerka ah ee legally usoo gala si sharciyana deegaanka uga shaqeeya in la yidhaahdo yaanu soo gelin oo war la siin maayo dee waa faquuqadii. marka berita maxaad ka filaysaa? tusaalahaan xafiiska waxbarashada, xafiiska caafimaadka, xafiiska biyo muxuu ka filayaa inuu ka sheego haddaanad xog siinayn? marka waa inuu mala-awaalka urursado. marka taa waa digniin iyo talabixin aan u soo jeedinayo haddii xubno xagga dawladda ka socdaa ay jiraan bal xogta inay gaarsiiyaan xafiisyada ay khusayso. meel dadka waa la qabtay, xukunkiina waa la mariyay, sharcigiina waa la mariyay. dhinaca kale waxaynu aragnaa dawladda laftigeeda wasiirro badan oo hal meel isku yimid ama baarlamaan meel ku shareeya oo sharcigiina iyaguna sidaa macnaha u isticmaalaya. marka yaa ilaaliya ka ama intee leeg bay maxkamadaha dalka iyo deegaankuba inay xorriyadda shakhsiga
ilaaliyaan oo dowladdu haddii ay qofka ka gardaran tahay ay ka qabtaan intee leeg buu damaanad qofku u haystaa macnaha in la siyaasadeynaynin fikirkiisii oo si cadaalada oo sharciya oo maxkamaddii oo madax bannaan oon la politicize garaynin ama telefoon aan wax loogu soo sheegin si cadaalada sharcigiisii lagu waafajinayo macnaha si loo horumariyo dimuqraadiga iyo xorriyatul qowlka oo dadka siyaasiyiinta ama awoodda haysta in kolba advantage ku sida ku jira inuu isticmaalin. ugu dambeyn kulamada la mid ah kuwani ayaa ku soo badanaya deegaanka wixii isbedelka ka dambeeyay waxaana dhalinyarada ururada dalladaha ku mideysan iyo aqoon-yahanaduba ay si cadcadaan iyo xorriyad ku dheehantahay u soo bandhigaan badanaa doodaha la mid ah kuwani iyagoona xukuumadda jirta u soo jeediya wixii dhaliil ah oo ay leedahay waxaana loogu baaqay aqoon-yahanada deegaanka inay fagaarayaasha la mid ah kuwani badiyaan kana qaybgeliyaan qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka.